saa'ilka labaad su-aal aada uga durugsan middaas wuxuu leeyahay eeyaha ma la xanaanaysan karaa haddaan iska ilaaliyo dhareerkooda? masalada ayga ilaa dhaqaalaysigiisu ma bannaana haddii aan sabab cudurdaar sharci ah oo loo dhaqaalaysanayaa jirin. nabigu 3 sababood buu sheegay. 3 sababood waxaan ahayn dhibaato weyn bay qofka u geysanaysaa diintiisa. oo nabigu wuxuu yidhi qofkii ay kaydsada guriga ku haysta ee xanaanaysta maalin walba ajirkiisa waxaa ka nusqaamaya qiraatun, ajir weyn baa ka go-ayoo khasaaraya. riwaayadka qaarkoodna qiraatayni 2 qiraad bay ka dhigayaan. waxaa kaloo ku dhacaysa inaynan malaa'igtu soo gelin gurigiisa. malaa'igtii naxariista tii xisaabta iyo camalka maaha, tii naxariista iyo meelaha dikriga iyo dadka mu'miniinta iyo u imanaysay inay eygaa dartii guriga uga joogaan baa imanaysa. marka nabigu wuxuu ka reebay 3 iyo wixii lamid ah baa la israacinayaa. wuxuu yidhi ilaa kalba saydin, mid lagu ugaadhsanayo ugaadha kuu soo qabanaya, aw zarcin, mid beerta ilaalinaya oo beerta ku waardiyeynaya, aw maashiyatin, mid xoolaha ku ilaalinayood xayawaanaadkan xoolaha dila kaga ilaashanayso. waxaa la mid noqonaya mid xaafad waardiyeynaya hadduu yahay oo intay tuugo iyo jiraan guriga hortiisa fadhiisanaya ama meel barxadiisa habeenkii lagu sii daynayo oo tuugada iyo ciddii guriga u soo dhacda ka waardiyeynaya ama ku qaydaya. intaa 3 la sheegay iyo wixii qiyaaska manfaco aan looga maarmaynin leh intaasaa cudurdaar ahaan loo kaydsan karaa. wixii aan sababahaas loo kaydsanaya manfacada aan lahayn eyga la iska haysanaya guryaha wehelka looga dhiganayo dadadaan nijaasana ka cararaynin ama wehel iyo muslim iyo iimaan iyo cibaado iyo weheshadaan waayey baa walad iyo ilmo ka dhigta. marka ma bannaana, ajirkaa iyo diintaada wax badan buu dhimayaa.